munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay kooda luuliya oo ah 56 sano guuradii ka soo wareegtay markii calanka Soomaaliya laga taagay geyigan Soomaaliya isla markaasina ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo Waqooyi ee dalka Soomaaliya xalayta lagu qabtay magaalada Cadaad ee xarunta Galmudug. Munaasabadan oo soo qaban qaabiyay maamulka Galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Galmudug, saraakiil ka tirsan booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya, fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dadkii ka hadlay goobta intay munaasabadu socoto iskugu jiray qoyahano waxgarad iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ayaa ka sheekayay muhiimadda ay leedahay in la xuso maalinta kooda luuliyo. dhalinyaro ku xamaasadaysan sidaan aaminsanahay magac diineed ama markii dawladdii dhacday ujeedooyin khariban loo dhiibay ayaa astaamahaas baabiiyey. haddii astaantii muuqatay la baabiiyey midda maskaxdu maxay tahay weeye. calankan waxaa soo hooyay rag baa u dhammaaday iyo gabdhaba dhiiggoodiina u huray dhaqankoodii u daayey. waxaa jira dad habar iyo odayba uga dhinteen ayagiina koray oo shaqaysoo kacay oo ku tacliin qaatay. waxaan walaalaha Soomaaliyeed u sheegayaa qabiil wuxuu yahay male waa qurun waa wasaqna waa la dhaqaa. qabiilka aan reebaysin maxaa Soomaaliyeed saatan kala daa oo maxaa sirciya xumaan saamiga uga dhigan calankii baa ceerayo ciidabo ku dhacay caruurteenne caddaan meelba ka hel. xildhibaan Yuusuf Xasan Cali oo ka tirsan wakiilada Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka gumaystaha waddankeena u kala qaybiyay. hadda 56 jirsatay soo bilaabata 1960 bishii Juun iyo midowgii labada gobol ee 1960 koodii bishii July. waxaan la soconnaa gumaystaha reer Yurub waxay qabsadeen Afrika sanadii 1884. Soomaaliya waxaa loo qaybiyay ilaa 5 qaybood. Faransiiska waxaa loo gacan geliyay dalkii la dhihi jiray Faransa Somaliland, Djibouti ayaa loo gacan geliyay. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa bulshada Galmudug iyo guud ahaan kuwa Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta ku weyn ummadda Soomaaliyeed. runtii guud ahaan waxaan dadkayga reer Galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba uga hambalyeynaya 56 guurada ka soo wareegtay markii xornimada ay qaateen, taas oo ku beegan caawa kooda luuliyo kuna beegneed kooda luuliyo ee 1900 iyo sanadkii 60kii, taas oo gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga labadaba maaragtay runtii laga xoreeyo. nimcada uu nasiiyay iyo horumarka Ilaahayna waafajiyay iyo nasiibka caawa u yeelan inaan xusno intaba runtii waa wax aad iyo aad loogu mahadiyo. waxaan idin cadeynayaa in waddanka Soomaaliya yahay waddan xor ah isla markaana dimuqraadi ah, waddankeena inuu yahay waddan leh in deeqa anagoo dhan naguna filan, waddankeena inuu yahay waddan dadkiisa gacmahooda ku dhisteen. kooxda fanaaniinta xidigaha Galmudug ayaa goobta ku soo bandhigay heese ka turjumaya xornimada iyo midnimada Soomaaliya iyadoo ugu dambeyntii 6 habeenimo la saaray calanka. مبارك محمود آدن، Somali Cable TV، مقالة عدادو.